kulan ballaaran oo maanta ka qabsamay xarunta maamulka gobolka Togdheer isla markaana ka soo qayb galeen mas'uuliyiin sarsare oo ka socotay wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta maamulka gobolka Togdheer saraakiil ka socotay dowladda hoose Burco dhammaan isduwayaasha wasaaradaha gobolka Togdheer taliyayaasha ciidamada booliska abwaano iyo marti sharaf kale oo badan kulankani oo soo qaban qaabisay wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta Somaliland lagaga arisanayay sidii wax looga qaban lahaa dhismayaasha wadaxmida iyo tayeynta iyo hagaajinta dhismayaasha ka socda gobolka Togdheer sidoo kalena waxa kulankani lagu wacyi gelinayay bulshada xeerka dhismayaasha oo ay dhawaan ansixiyeen golaha baarlamaanka ee Somaliland dhismaha guud ee wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta Somaliland Shariif Libaax Muuse oo madashani ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in bulshadu iska kaashato nidaaminta iyo hagaajinta dhismayaasha waxaana uu cadeeyay in dowladaha hoose ee Somaliland ay haystaan xeerka dhismayaasha loona baahan yahay inay dhaqan galiyaan agaasimaha waaxda qorsheynta ee dhulka ee wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta ayaa soo bandhigay ajandayaasha shirkan isagoo xusayn kulankan yahay mid dadka lagu wacyi gelinayo xeerka dhismayaasha waxaana uu bulshada ugu baaqay inay ilaaliyaan nidaamka rakacayn la waayay meelaha qaar meel loo ay baabuurtu maraan meydka ama haddii uu gurigubta ayuu yidhi ay dabdamisku maraan waxaana uu bulshadani ugu baaqay in ay baneeyaan wadooyinkaasi loo mari lahaa dadweynihii kale iyaguna kulankani ka hadlay ayaa ku ammaanay wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta shaqada adag ee u hayso qarankani Somaliland ugu dambeyntii dhawaan ay ahayd markii golaha wakiilada Somaliland ay ansixiyeen xeerka dhismaha oo wax weyn ka bedeli doona nashqadii hore ee dhismaha guryaha ee laga dhisan jiray Somaliland Safar Abdullahi Abdulsaaq Nakruma shabakada caalamiga ah ee Burco online magaala madaxda gobolka Togdheer Burco.